kuba nin iyo naag waa la isu qorayo adduunkaas wuxuu ku taagan yahay waa nin iyo naag iyo waxay dhaleen soo ma kala maarmaan sheeko walbay ku saabsan tahay nin iyo naag adduunku wuxuu ku dhisan yahay nin iyo naag wuxuu ku walaal xageed u socotaa waxaan ku walaal bas baan sugayaa dukaankan wax qaybsada bas baan sugayaa ma ku dhaweeyaa buu yiri marka kama shakiinba oo ismaan odhan dee wiil Soomaaliyeed oo gaari watana kama shakiin cabsidan iyo waxaan hadda lagu jiraan bariga ma jirin adduunku waa ladnaa gaarigii ayaan shirka ugu dhacay bilaa kabo wiil gaarigiisa udgoonka ka soo baxaya iyo qofka siduu u eg aadan malaynin oo hadal yar ninku ka hadal yar yahay uu ka sheeka macaan yahay uu ka soo jiidasho badan yahay wiilasha markaad su-aal weydiisa ama waxyar kaaga jawaabo aan hadalka badnayn aan qaylada badnayn way ka roomaansan yihiin wiilasha kale wayna ka run badan yihiin haddaad aragto mid daf leh oo maaragtay iska qaylanayo oo ani dhegeysa ah waxa meesha kuma hayo wiilku wuxuu ahaa wiil degan hadal macaan markuu sheekaynayo xataa markaan degay wuxuu sameeyey walaal biigu yiri meeshaadi ma timid haa si alla si aan number uga qaataan garan waaye wiilkii wuu nabadgeeyey gurigii intaan soo soconina kalmad yar buu i weydiiyaa waan uga jawaabaa kalmad yarna waan weydiiyaa taan weydiiye xataa aayad wuu dhaqo wuu soo eegaa wadadana wuu sii eegaya haywayga uuna ii qosliyaa qalbigaygii oo dhan waxa igu dhacay jacaylkii barashada kasoo badiyey wiilkii waxaan isiri hal haadaa bashar hal haadaa huwa bashar ma bini aadan baa qofkani maasha allah subxaana alladii khalaqa waan isbarannay adigu kama qaadan telefoon laakiin markaan ka dhaqaaqay laba talaabaan dib ugu soo noqday wiil fiican baa tahay nama isbaran karnaa amba waan islahaa wiili bagaa tiri adigaa shukaansadayba wiilka haamiyada waalinta kaba la'aan adkaatay nambarkii telefoonku ii sheegay waan ka qaatay gurigii markaan tegey 12 habeenkii waxaan ka fikirayay hadda ma wacdaa mise hadhow waad wacdaa maya ha ku soo waceedaa markuu waagii baryey uu isoo wici waayey baan duhuradii ma joogi kare ninkii iyo gaarigii baa ii sawirana baan telefoon u diray markaan telefoon u diray dhahay walaal seetan fiicanta waan kaa xishoonaya anugu ma hasan kuu soo wici waayey bagaad iga soo hormartay wixiisuba waa bagaad iga soo hormartay hadalkiisuba waa bagaad iga soo hormartay iyo bagaan ku bartay wixiisa bagaa ka buuxda kalmad walba hadal kasta bagaa ka buuxda adkaatay sidii u ahayd maalintii dambe anoo xanaaqsanoo guriga intaan isku dhacnay waxoogaa jeclaanaani isagiyool xataa ma ahayn dadka lacagtana dumarka siiya muusan ahayn hool lacagta xayeysiis ma ahayn wixiisu daacad bay ka tahay haddaan israacna casho weligii alla ima odhan hool lacagtaasaan kuu soo diraya ana lacag ma weydiisano reerkaygaan la noolaa waxay ahayd wixiisuba daacad buu ahaa aad baan uga helay saraaxa bal gabadh kasteba jacaylkaagu kelmadda ugu badan uu dhahaa soo qora gabadh kastay kelmadda ugu badan jacaylkaagu dhahaa soo qor ku soco master bagan cabaar markaan wiilku iguma soo qaadayba wax ku saabsan yacni waxaan soo soconnaa muddo ku dhow ilaa 7 bilood 7 bilood kax baan ahay hal marun hadduu odhan lahaa yacni maxaa inoo tala ah baan sugayaa aniguna dee dumar baan waxaan ku sharaftaan ku dhimanaya because yacni wax kasta ciisata nafsi wax kasta waxa ka qaalisan yacni akhlaaqdaada edabtaada iyo da wixii lagu soo baraa muhiim ah gabadhu inay aqbalkeen noqoto mooye dee nin kuma odhan karaysa maaragtay ma isguursanaa waxaas waa yar sharaf dhac weeye si kastay u rabta ninka kolley aniga dooqayga ahaan markaan ka hadlaya naftayda wiilkii wuxuu igu yidhi maalintii dambe walaalay macaanay waan baxayaa laakiin waan soo noqonayaa meel yar halkan aan ka dhowr cishaan maqnaanayaa waayahay baan ku yidhi telefoonna waan kuu soo diray markaan awoodo marka kalena qarada ii fahmi okay marka hees dhegta kama qaada marka rikoor yar baan leeyahay baytariyadu marka iimay ogolayn reerka waxay doonayaan in anigu quraan dhageysto oon quraan barto heesaha badan markaan dharka maydhayo kale iima ogola marka iima ogolo maxaa la yidhahdaa ii sheeg la iima ogolo baytarigu markasta wuu dhammaanayaa marka la iima ogolo ana maanta waxaan dhegeystaa haddaad ruuxis barateed u baled fokaad tago heestaasaan kusoo celceliyaa hooyaday waxay tiri waxaan beledka fog kaa tegay eedu barooranaysa 24/7 muxuu yahay qof kasta oo heesta adna kusoo xasuusato sheeg heesta ku xasuusato ku soco nin baytari way iga dhammaadaa waxaan saaraa jiingad yar korkeed wuu kululaadaa midba ii shaqeeya
cajaladu markay cuntay tira dukaanka way bartay deyntii way ii diiday 2 baytari waan kasoo deynsadaa wuxuu igu yiri baytariga hore lagugu leeyahay waxaan ku iska arday baan ahay oo ma lacag fiican ma haysto reerkuna wax saasa ma haystaan oo taajiriin ma hadda aan wax walba laysiinaya maaha haddaan dharkaygii kabaayga nolosheedii aan cunoon cabo dee wixiga maqan male dee waxaan imika loo baahan yahay makeupkii iscadaynta iyo balaayadana ma jirta inta badan wiilkii wuu maqnaa adugu xogaaba ku darsay dhowr cisho wuu yimid kow markuu yimid anuu ii yimid wuxuu ii keenay saacad kaasiya ah iyo wuxuu ii keenay barfuun kubra la dhihi jiro mas ku sawiraan jiray iyo wuxuu ii keenay kaba qaraafiica iyo wuxuu ii keenay shalmad wil ah oo kubad ku sawiran tahay iyo wuxuu ii keenay wax yaroo maaragtay daboolan oo markaad saa u shida kala baxaya ood moodo maaragtay wax lagu ciyaaro kale waxaan isiri muxuu waxa kaa keenay ninku maciyaalba dee waddankeena dad gabadh u geyso bombala lagu ciyaaro xasaa wax miyuu sirxan yahay muu maran yahay xataa jacaylka kubadaha iyo banooniga galay kelmadda aan idhaahdo wuxuu igu idhahdaa maxaan ku idhahdaaye baga iyo macaan qalbi noloshaydii wuxuu igu idhaha wax kastoo adduunyada joogta adaan kaa jeclahay wax walbo adduunka dhaqaaqa adaan kaa jeclahay anigana sidoo kale kelmadeyda anigana anu qora waa anigana sidoo kale jacaylkii la odhanayay baa i madax maray ma gam'o yacni maanta dhan ma seexdo ma cuno ma cabo ninkuba insi maaha maadaama aanu kuu sheekayn oonu jacaylkaaga sheekayn maxaa ku jeclaatay marka dee aniga isagii rabaa jecel isaga waxba iima sheeganayo laakiin uu i rabaa way ka muuqataa inuu i rabo uu i doonayo markaas ma qaangaadhi miya haa markaasaan qaangaadhi isaguu i doonaya laakiin waan ku jecelahay imale macaan qalbi markaas ma bawaasiirta kugu kacday haye bawaasiir ku dishay marka anbuu macaan badana iyo qalbiga ii soo qoraa yacni isagu intaasuu afka iga leeyahay laakiin waan ku jecelahay in mustaqbal baan kaa rabaa inaan ku guursadaan rabaa imuu odhan laakiin macaan iyo qalbiga noloshaydii baata adduunkan kuu jeclay waxaas waa iska taqaan sheeka khayaali wey telefoon ani laakiin dhabba igata waxaa layidhi bisadna waa ka ciyaar jiirna waa ka naf show ninkuba insi ma ahe waa jin ninkuba insi ma ahe waa jin masar sidoo kale ninkuba insi maaha ee waa jin laakiin waa jin muslima adkaatay waxaan ku idhi qaraca noocii ugu dambeysay ayaa bilaaban doonee wiilka waxaan ku idhi walaalow macaanow ani waan ku jeclahay laakiin reerkayga waxay igu xujeeyeen ani inaan maarata qur-aanka dhammeeyo oon iskuul barto anna jacaylkaaga baa madax maray iskuulka waan ka habsaa wax kasta waan ka habsaamay wuxuu igu yidhi anaa ku caawinaya qur-aanka maxaa halkaa soo fadhiisa buu igu yidhi imow fiidkii soo bax anaa kaa caawinaya qur-aanka oo jin qur-aanka ku barayaba waaba xaafidul qur'aan baan ku idhi saasuu iigu meeriyaa dharag iga dabadhe waxaan ku idhi 2 marba ku ii meeriyay kitaabka ii meeri aniga waxaan tagaa dugsiga tagaa subxi anoo suurad kasta kor ka qoraya oo intaan loo xaqaato kor ka qorayaan tagaa waxaan ku idhi marka la aadaamo wuxuu igu idhahdaa aamus marka la aadimo wuxuu igu idhaa aamus waxaa ducada aadaanku akhrinayaa waxaan ku idhi waa kaale iska arag ehelkiisoo dhan waxa weeyaan ehel wada maaragtay muslimiin ah isagu waa muslim laakiinse mushkiladda anigu ma garanaya de markaa inuu isagu jin yaho ma ogi jacaylkii baa i madax maray wuxuu igu yidhi isma arkayno waxaan kuu rajaynayaa nasiib wacan say igu rajaynaysaa intaas adaan ku jecelahay wuxuu yidhi haddaan kuu sheego waxaan hay ima sii jeclaan doontid acuudu billah adkaat soo wada qora aawati markaasaa waxaan caado adkaatay maya miihi mid ku nici karta miihi mid ku nici karta miihi baan idhi wax kastoo dhaca adduunka maa ka joogtid buu igu yidhi maya baan idhi anigoo kaabadda gurigeega fadhiya unba meesha soo istaaga gaadhi kulaha soo gal gaadhiga gaadhi maxaya gaadhiba ma arkee soo gal gaadhiga waxbaa ila hadlaya meeshu waa dam soo gal gaadhiga maxaan soo galaa gaadhiba ma arkee aayarunbu waa isshidayba gaadhi iyo nal iyo qof wax soo gala iyo guux toona ma maqal agtayda taagan adkaatay intaan booday oon gurigii galoon dalaq ayaan iridda xidha guriga saan qayliya waa waray guriga markaan xidho albaabku kala soo baxayaa wejiga albaab guduhu soo gelayaa markaasuu odhanayaa waan kuu sheegay laakiin maadaamaan iskaa tusay anaa kule jin baan ahay jin muslinaan ahay waan ku jecelahay waan ku guursanayaa calaa sunnati allah wa rasuulu markuu iga daba hari waayey yuu yidhi anu waan ku jeclaa laakiin ma rab inaan sukaa sheego baan biyo faraxala
biyo ii yaalla meesha oo xal ah ku shubay isagaa ku shubtaa biyihii baan ku shubay haye markaan biyihii ku shubay wuu i galay waana lay qaatay wuu ku galaa wuu i galay wuu horuna iga qaatay haye adkaatay wuxuu i geeyey waxaan soo toosay anigoo meel buuro dhexdood ah jiifa oo naag dhuuban oo dhexdeedu taa ka tahay bariis cad i leedahay cun baan soo toosay markaan soo toosay ee aan fadhiistay ayaa waxaan idhi maxay tahay meeshaan barabii guri faamilkaygii halkan waxaa fadhiya jeeshkii juud amaan juud baa fadhiya bannaanka waa kamii guri dadkaygii waana ku guursanaya halkan baad ku noolaanaysaa caalamka quruxda sida loo nool yahay dadka say u wada xijaaban yihiin dad waxaan ku idhi anigii naxdin meeshii baan jiifaa bariiska saa markay iigu soo dhiibtay ayaa waxa isweeraray oo meesha isku weeraray reerkiisii ma rabaan inay aniga lii guursada ma rabaan waxay yidhaahdeen naagtan ma rabno kumaba rabtaba marka in hebel baa ku jecel ma gabadh iyaga kamid a isaga rabta marka meeshii ku jiray qur-aan haddaad akhrisid waxba kagama qaadi karay sidoo iyaga waa islaam meeshii baan ku jiray reerkaygii way iga quusteen meeshii waxaan ku maqnaa 17 sano baa la jiray way i guursadeen aroos baa la ii dhigay anigu markii waagu uu beryo cidba ma arkaba meel baan iska joogaa keligay 12 caawan waxaan la joogaa reer qurux badan filooyin adduunyo dabaqyo noloshaan ku noolay kaale iska arag waagu hadduu beryo anu meel cidlaan iska fadhiyaa waagu markuu beryo keligaa baa tahay xashiish baa dhex keligay baan ahay waxaan u dhalay adigu iska dhe marka la isku daro 32 carruura qaniyadooda ka waran dee waxaan ku idhi de waa another level yeah so waxaan ku idhi waxa weeyaan AK47 marka alayka qaniinta marka waxaa dhacday inaan meeshiisa aan ugu jiray maalintii maalmaha ka dambeysay ninkii markuu dhintay wuu sakaraaday wuu dhintay waxay colaadisay sadohdii bay colaadisay sadohdii markii colaadisay waxay igu tiri dhegeyso waa ina adduunkaaga ku noqotaa adduunkaaga ku noqo wiilkii meesha kugu hayay wuu dhintay annaguna dana kalaan leenaho dee qofna maalinta kula joogi maayo qofna habeenka kula joogi maayo reerkii waxaan is arkay anoo taagan meel u dhow aad moodo bannaan cidla ah laakiin guryaha halkaasoo kale ku yaalaan meeshii haddaan imid waa gobolka ay reerkaygu degan yihiin meel u jirta adugu iska dheh adu dhowr kilomitir meeshii baan imid waxaan idhi ina hebel baan ahay reerkaygii baa lay keenay waxaa laigu yidhi aabba wuu dhintay hooyaa nool hooyaday markay artay way qaadan weyday yacni sidaydii baan ahay waxba iskama kay bedelin sidaydii baan u ekahay waxba iskama kay bedelin in xitaa dhashay laguma moodo maya laakiin carruurtaydii baan rabaa imisa dhashay markaa 32 32 carruura halkii mar waa 7 imisa bilada ku dhalaysaa markaa ma tirida sidii caadi yahay garan ma xasuusto intay ahayd so waxaa dhacday in ninkii iyo wixii noloshii soo dhammaateen gurigii imid qur-aan la isaar wax kasta la isamee wixii baan ka sheekeeyey carruurtaydii baan u baahanahay marka ilaa hadda waxaan ahay hooyo keligeed ah intii kadib layma guursanin hooyadii ugama sheekayn inaa 32 carruura ii joogaan laakiin hooyadii waxaa ugu sheekay inuu jin qaatoon xabis ku jiri jiray la isoo daayay qur-aan baa laigala daalay meel kastaa la igeeyey waan fiicanahay 100% waxaan rabaa inaan dadka kala tashado maxaan sameeyaa carruurtayda kama quusan karo meel aan ka raadiyana ma aqaano okay dadka maxaan ku dhahnaa markaa raadi ma ku dhahnaa mise ha raadin dee maxaan ka garanaya gabadha hoos bay joogtaa jinku qabay wixii la yidhaahda arag waa sheeko dhabo gabadhiina daawanaysaba gabadha ku jirtaa dabcan haa war way baryaysay intee beri wallaahi alcadiim abaa ii sheeg wallaahi alcadiim way ku jirtaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun adkaatay carruurta raadso waa qosolka ninkas iskaga har waa oohinta carruurta raadso waa qosolka u taabtay ha raadsato carruurteeda waa intaasoo lacag ba laga helaa aba soomaalidu taajirtaaba carruurtaada raadso waa qosolka
هراتسنة كعرنا انت انا راتسن ده حروت هذا راتسو leeyahay waxaan leeyahay caruurta raadsan maahee ku caruurayse wax leeda qur-aan baad isa saaraysaa qofka oo isxijaabaysaa ilaahayna ka bari salaad tuko oo ilaahay ka bari maaragtay in nolol cusub ilaahay ku bilaawdo waxaana ilaahay niyadaada ka saaro insha allah اوكي ان ام ان سدو